hubka wax gumaada ee nuclearka waa mid ka mid ah hubka ugu halista badan caalamka, sidaas oo ay tahayna looma ogola in dowlad waliba ay samaysato, balse taa beddelkeeda haddii dowlad ay samaysato hubkaasi, dowladda deriska la ah waxay isku daydaa in ay samaysato. Haddaba sidee Hindiya iyo Israa'iil ay u qorsheeyeen burburinta hubka nuclearka ee Pakistan? Muxuu ahaa qorshihii la damacsanaa Pakistan? Maxay ahayd caawimaadii ay Israa'iil siisay Hindiya? Siduu u fashilmay howlgalkii lagu burburin rabay warshadii nuclearka ee Pakistan? ciwaankeena maanta ayaynu ku falaqayn doonaa. wariyaasha lagu kala magacaabo Adrian Levy iyo Katrina Scott Clark ayaa sheegay in Pakistan, Mareykanka iyo hay'adda nuclearka caalamka ay sheegeen in Hindiya ay qorsheynayso weerar ay ku qaado warshada nuclearka ee Pakistan ee Kahuta, iyadoo caawinaad ka helaysa diyaaradaha loo yaqaano Jaguar. bishii February ee sanadkii 1983 saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga Hindiya ayaa booqasho qarsoodi ah ku tagay Israa'iil. intii ay ku sugnaayeen halkaasi, saraakiisha militariga Hindiya waxay isku dayeen in ay ogaadaan sida lagu heli karo qalab laga heli karo xogta rasmiga ah ee ku saabsan qaabka loo sugayo amniga warshada Kahuta. Israa'iil waxay Hindiya siisay macluumaad dhanka farsamada ah oo ku saabsan diyaaradaha F-16 ee ay leedahay Pakistan. isla markaas Hindiya waxay dhankeeda Israa'iil xogtaasi ugu bedelatay macluumaad ku saabsan diyaaradaha MiG-23. Israa'iil ayaa u baahnay xogtaasi ku saabsan diyaaradaha uu sameeyay Midowgii Soviyeeti maadaama ay isticmaalayeen dalalka Carabta ee deriska la ah. Bahraad Karnad oo ah falanqeeyo sare oo dhanka amniga ah ayaa buug uu qoray ku yiri, waxaan magaalada Beirut kula kulmay Aaron Yerif oo ahaa taliyihii caanka ah ee hogaaminayay sirdoonka Israa'iil ee howlgabka noqday sanadkii 1983. waxa uu ii sheegay xog ku saabsan arrintan, sida uu qorshaha ahaa 6 diyaaradood oo nuucoodu yahay F-16 iyo 6 kale oo nuucoodu yahay F-15 ayaa loogu talagalay in ay fuliyaan howlgalka lagu burburin rabay warshada nuclearka ee Pakistan. diyaaradahaasi ayaa la qorsheeyay in ay ka soo duulaan garoonka Haif ee gudaha Israa'iil, ayna soo caga dhigtaan garoonka magaalada Jamnagar iyagoo sii dul maraya badda Carbeed ee dhinaca koonfurta. halkaasi marka ay gaaraan, duuliyaasha diyaaradahaasi iyo askarta kale ayaa ku nasir rabay si ay u qorsheeyaan waxna ay ugu sii toosiyaan. waxa uu falanqeeyo qoray inta ay howshaasi socotay, diyaarad xamuul ah oo ay leedahay Israa'iil nuuceeduna yahay C-17 ayaa loo xilsaaray inay waxyaabaha qarxa iyo qalab kale ka dejiso garoonka Udmuhur ee Jammu iyo Kashmir. diyaaradda F-16 ayaa loo qorsheeyay in ay ka soo duusho Jamnagar ayna gaarto Undubur iyadoo hawada ku sii qaadanaysa shidaalka. halkaasi marka ay ka baxaan diyaaraduhu waxa ay ka badbaadi lahaayeen qalabka raadarada ee ku rakibin xadka Pakistan iyagoo sii dul maraya dhul buuraley ah. marka ay ka soo baxaan buuraleyda, 2 diyaaradood oo F-16 ah ayaa bambooyin ku tuuri lahaa warshada nuclearka ee Kahuta. inta ay howshaasi socoto, diyaaradaha F-15 ayaa hawada ka difaaci lahaa haddii ciidamada cirka ee Pakistan ay isku dayaan in ay tallaabo qaadaan. marka uu weerarka dhaco kadib, diyaaradaha F-16 ah waxa ay dhinaca galbeed uga bixi lahaayeen hawada Pakistan iyagoo joog hoose ku duulaya ayay dib ugu noqon lahaayeen dhulkooda buuraleyda ah. halkaasna diyaaradaha Pakistan kuma eryi karaan diyaaradaha Israa'iil ee buuraha ku dhex jiray. Bahraad Karnad oo ka sheekeynaya xogtii uu ka helay taliyihii sirdoonka Israa'iil ayaa sidoo kale qoray, Israa'iiliyiintu waxay aaminsan yihiin in Hindiya ay diiday in ay ku lug yeelato weerarkaasi, sababtaas ayay Israa'iil u ogolaatay in diyaaradahaasi ay ka muuqdaan calaamadaheeda. Israa'iil waxay rabtay in Hindiya ay ka qayb qaadato weerarkaasi. Dr. Rajesh Ragbolan oo ah professor wax ka dhiga jaamacadda Jamrahal Nehru ayaa BBC-da ku yiri, waxaa jira hadallo badan oo ku saabsanaa sida ay diyaaradaha Israa'iil uga caga dhiganayeen garoonka Jamnagar ee Gujarat iyo weerarka la damacsanaa warshada nuclearka ee Pakistan ee ku taalay Kahuta. xog goor dambe la dusiyay ayaa shaaca ka qaaday in Mareykanka uu soo farageliyay qorshahaasi. Midowgii Soviyeeti ayaa sidoo kale ka walwalsanaa, inkastoo aan la ogeyn inuu hayay xog rasmi ah iyo inuu qiyaas ku socday toona. marka ma jirto xog cad oo laga hayo arrintaasi. wargeyska Jerusalem Post ee fadhigiisu yahay magaalada Tel Aviv ayaa bishii February ee sanadkii 1987 shaaciyay in militariga Israa'iil ay Hindiya dhowr jeer kala hadleen weerar wadajir ah oo lagu qaado warshada nuclearka ee Kahuta. sida uu sheegay Dr. Rajabuluna, Israa'iil aad bay ugu adkeyd inay diyaaradaheeda soo maraan masaafadaas dheer ee u dhaxaysay Israa'iil iyo Jamnagar, haddana ay wali isqariyaan. Israa'iil waxa ay ka cabsi qabtay in haddii ay Pakistan hesho hubka nuclearka ay gaarsiin doonto wadamada Iraq, Liibiya iyo Iran. saynisyahanka Pakistan ee hubka nuclearka Abdulqaadir Khan ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inuu tiknoolajiyadda macdanta uranium-ka ka iibiyay shirkado ka tirsan Midowga Yurub, Iran, Liibiya iyo Kuuriyada Waqooyi. sida ay muujiyeen warqado xog ah oo laga helay safiirkii Mareykanka u fadhiyay Pakistan ayaa hogaamiyay xukunka militariga ku haystay Pakistan
Jarnaal Zaul uu ballan qaaday inuu Mareykanku la wadaago haddii uu helo xog ku aadan in Hindiya ay weerar la damacsan tahay warshada Kahuta. 22 bishii Sebtembar ee sanadkii 1984 ku-xigeenkii agaasimaha waaxda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ayaa saraakiil sarsare oo u dhashay Pakistan ku wargeliyay in Hindiya ay weerar xagga cirka ku qaadi karto Pakistan. Markii ay warbaahinta shaaciyeen xogahaas, waxaa la aaminsan yahay in dalalka reer galbeedku ay cadaadis saareen Hindiya, taasoo sababtay in ra'iisul wasaaraha Hindiya ay baajiso qorshaha oo dhan. hal bil kadib waqtigaasi oo ku beegnay 31 bishii Oktoobar ee sanadkii 1984 Masar Indira Gandhi waxaa dilay waardiyaasheedii waxaana xilkii ra'iisul wasaaraha ee Hindiya la wareegay wiilkeedii Rajiv Gandhi. halkaa ha inooga ekaato.